dawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa ku diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambalelkana furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa khudbadu ka jeediyay telefishinka Anadolu laga leeyahay wadanka Turkiga ayaa ku difaacay qadiyadda Falastiin hadalkii madaxweynahana wuxuu dhignaa sidan kuwaasoo sheer kula jira Israa'iil dhiiga ay daadinayso kuwa doortay inay ka aamusaan qadiyadda Falastiin iyo kuwa caawinaya Israa'iil iyagoo kale dana siyaasadeed iyo fikrad ahaan ku tiirsanaanta Israa'iil waa inay ogaadaan maalin in la isla xisaabtami doono haddii aan si degdeg ah ku joojin weyno gardarrada ay ku hayso Israa'iil dadka Falastiiniyiinta gaar ahaan marinkaasi Gaza berrito qof kastaba wuxuu wajihi doonaa bartilmaameed si waliya waliba ah mid axmaqnimo dowladdan argagixisada ee Israa'iil taasoo isku dayday inay dhacdo magaalooyinka sida Jerusalem dhulkaasoo ah dhul barakaysan oo hoy u ah dadka muslimiinta kiristaanka iyo yuhuudda Israa'iil waxay ka soo talowday dhammaanba xadadkeedii sharaf weyn ayay u tahay dhammaanba insaanka inay Falastiiniyiintu iska caabiyaan gardarrada Israa'iil ay ku hayso magaalooyinka sida Jerusalem dawadahayaga qaaliga asxaabta aan jecelnahay maxaa ku diidaya inaad markaba subscribe noo saarto like gambalelkana furato si ay noogu noqoto dhiirigelin wanaagsan